qarashkii ku bixi lahaa todobax ay ku aadayaan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. Shirkadda Uber waxay u ballan qaaday in taksiyada si free ay ku raaci doonaan lamaanahooda intay ku guda jiraan todobadooda ama ay joogaan dalka Mareykanka. Bangiga lagu magacaabo Standard Bank waxa uu ballan qaaday inuu bixinayo dhammaan deymaha lagu leeyahay lamaanahani. sidoo kale supermarketka lagu magacaabo Co waxa uu lamaanahani siiyay alaab free ah oo qiimaheeda gaaraya $1,000. kambani dahabka iibiya waxa uu lamaanahani siiyay faraanti qiimihiisa gaaraya $2,000. sidoo kale jiif caalami ah ayaa ballan qaaday inuu si free ah ku karin doono cuntada maalinta arooskooda. shirkadda DStv waxay u ballan qaaday inay siin doonto subscription 2 sano oo free ah. guurkii ka soo bilowday maqaayadda raqiiska ah ee KFC waxa uu ku dhamaaday inuu noqdo mid ka mid ah aroosyada ugu qaalisan ee ka dhaca dalka South Africa. haddii aad xiisaynaysid inaad daawatid sheekooyinkan oo kale oo dhaadheer waxaad ka heli kartaa barteeda YouTube-ka. linkiga waxa uu saaran yahay profile-keyga ama ku dhufo calaamadda YouTube-ka ee saaran profile-keyga. waxay si toos ah ku geyn doontaa barteeda YouTube-ka.